Wagaag daawadayaal qodobadaasi oo aad daawateen waxaan ka horeysiinayaa qubanaha wararka barnaamijka bandhiga horiyahayaga Maxamed Ibrahim Bulbul ayaa soo jeedinaya. mahadsanid Soomane qodobka koowaad ee aad ku daawan doontaan qubanaha wararka waxa uu noqonayaa Al-Shabaab ayaa ergooyin ku soo bandhigay deegaanka waa degmada Xardheere ee gobolka Mudug. dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa degmada Xardheere ee gobolka Mudug ku soo bandhigay qaar ka mid ah ergooyinkii wax ka soo xulay baarlamaanka Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa sheegtay in 90 ka mid ah ergooyinkii soo xulay xildhibaanada Soomaaliya lagu soo bandhigay magaaladaasi. waxay ka mid noqonayaan boqolaal ergooyin ah oo ku sugan deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab kuwaas oo qaatay amar ka soo baxay Al-Shabaab oo ahaa inay isdiiwaangeliyaan. odayaashan oo kale ayaa Al-Shabaab horey ugu soo bandhigeen deegaanada kale ah Buuq Aqable, Fuula iyo meelo kale oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Baay. Al-Shabaab ayaa sheegay in ku dhawaad 1000 ergo ay tageen deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab halkaas oo lagu qabtay seminaaro isla markaana laga cafiyay dhinaca Al-Shabaab. ergooyinkan ayaa Al-Shabaab u qabteen 45 habeen inay isku soo diiwaangeliyaan taas oo ay ku ekeed 1 bishan. hayeeshee Al-Shabaab ayaa sheegay inay ku dareen 10 maalmood oo kale oo shalay ku ekeed. ergada ugu badan ee Al-Shabaab mar soo bandhigeen waxay ku sheegeen 635 qof. waxaa ka dambeeyay kuwa kale oo lagu soo bandhigay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta Soomaaliya. markana dawladda Soomaaliya ayaa wareejisay shir guddoonka jaamacadda Carabta. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku midoobay jaamacadda Carabta ayaa shir guddoonka shirkaasi ku wareejiyay dhigiisa dalka Ciraaq Maxamed Cali Xaakim. wasiir Cawad oo hadal kooban ka jeediyay shirka wasiirada Carabta ayaa sheegay in qadiyadda Falastiin ay ahaanayso qadiyadda koowaad ee wadamada Carabta ilaa inta laga helayo dawlad madax bannaan oo Falastiin leedahay caasimadeeduna tahay magaalada Qudus. sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada Carbeed looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa xiisadaha iyo qalalaasaha ka taagan wadamada Carbeed qaarkood sida Liibiya, Yemen iyo Suuriya. dhinaca kale isagoo oo ka hadlay wasiir Cawad arrimaha Soomaaliya ayuu sheegay in ay weli jirto khatarta waxa loogu yeero argagixisada deegaanada qaar wuxuuna ugu baaqay dawladaha Carabta in ay Soomaaliya u baahan tahay in laga taageero dib u dhiska lana fuliyo ballanqaadyadii ay horey ugu sameeyeen. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo muddo 6 bilood ah ahaa shir gudoomiyaha golaha wasiirada dibadda ee ururka jaamacadda Carabta waxa uu gudoomiyay dhowr shirar oo yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carbeed. markana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulamo la qaatay gudoomiyaasha gobolka Bakool. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay weheliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan la qaatay maamulka degmooyinka Xudur, Rabdhure iyo Tieglow kaas oo loogu hadlayay xaaladaha ka jira gobolka Bakool. maamulka degmada Xudur iyo odayaasha ayaa madaxda kala hadlay dardargelinta howlaha dib u xureynta deegaanada hoos yimaada degmada iyo sidii loo tayeyn lahaa xarumaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii loogu qayb qaadan lahaa dib u xureynta guud ee gobolka Bakool. maamulka iyo odayaasha dhaqanka degmooyinka Rabdhure iyo Tieglow ayaa sidoo kale madaxda kala hadashay sidii degmooyinkaasi loogu saari lahaa Al-Shabaab oo gacanta ku haya degmooyinka ay gudoomiyaasha ka yihiin. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ballan qaaday in wax ay ka qaban doonaan arrimaha waxbarashada, caafimaadka iyo shaqo la'aanta ka jirta. wuxuuna sidoo kale uu sheegay in muhiimadda koowaad la siiyo sidii loogu shaqeyn lahaa amniga gobolka Bakool. dawlad ahaan ayuu ra'iisul wasaaruhu sheegay in ay wax ka qaban doonaan tayeenta ciidamada xoogga dalka. ugu dambeyn ra'iisul wasaare Kheyre ayaa mas'uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka kula dardaarmay inay xoojiyaan hanashada ammaanka guud ee gobolka Bakool. markaan aan dib ku celiyo Soomaali iyo qeybaha ka haray barnaamijka. wagaag aad buu maasan yahay wariyahayaga Maxamed Ibrahim Bulbul oo soo jeedinayay qubanaha wararka barnaamijka bandhiga telefishinka Universal.